Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Meel kastaad joogtaan kusoo dhawaada kanaalka Afifa Warsame. Maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo waxa la yiraahdo xor, yacni qof xor ah. Inta badan waa maqashaa ayadoo qof dhahayo aniga waxaan ahay independent women or independent man, yacni waxyaabahaas inta badan waa maqalnaa. Marka maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo qofkan la dhahayo independent person, yacni waa qof noocee ah. Inta badan qofkan lagu magacaabo qofka xorta ah isku magacaabo waa qof aaminsan in uu psychologically iyo socially iyo maaragtay financially inuu yahay qof xor ah oo madax bannaan. Yacni qof shaqo haysto oo maaragtay aan qof kala dhaqaale ahaan ku tiirsanayn, qof sidoo kale haysta fikradihiisa iyo aqoontiisa oo aan qof kale uga dambeyn fikradaha, iyo qof sidoo kale aan kala jeclayn cidlada iyo waxaas oo maaragtay aan dadka kale ka daba yaacin oo isagoo noloshiisa maareysan karo oo bulsho iyo saaxiibo iyo qoys iyo waxaas aan ka daba ordina inta badan lagu magacaabaa. Qofka noocaaneeto yacni waayahan dambeeto inta badan dadka xitaa waxay isku dayaan qofka aan ahayn inuu noqdo qof oo very independent ah. Marka fikirka adiga ka aaminsantahay ma ogi, laakiin mowduucaas aan rabaa inaan maanta ka hadlo. Marka koowaad horta waxaa aaminsanahay waxay tahay bini'aadanka sidiisa dhanba waa la isku abuuray, yacni qofba qof aa loo abuuray. Taas waxaa daliil u ahne ma jiro ilmo yar oo isbarbaarin kara. Tusaale ahaan geela markuu dhashto horuu ka istaaga, ariga markuu dhashto hor, dameerka hor, xayawaanayaashaas dhan markay dhashtaan horey ka istaagaan. Laakiin bini'aadanka wuxuu ka mid yahay xayawaanada naasleyda ah oo wuxuu ka mid yahay markuu dhashto aan hore ka istaagi karin oo u baahan in maaragtay la haayo, la daryeelo, la koriyo u baahan oo waqtiga qaata inuu hore ka istaago. Marka taas waxay daliil noo tusaysaa inuu bini'aadanku yahay wax aan ka madax bannaanaan karin bini'aadanka kale. Sidoo kale markuu qofku daqoobo kaligiis isma daryeeli karo, waa la daryeelaa. Markay timaado in adigu aabba noqotay mise hooyo noqotay oo caruur aad dhashidne kaligaa ma dhali kartid, waa inaa heshid qof kula dhasho. Sidoo kale marka la joogo yacni madaxweyne markaa rabtid inaad noqotid, madaxweyne iskama noqon kartid, waa inaa haysato dadaa madax u noqoto, dadaa maamusho waa inaa haysataa. Dhanka kale sidoo kale macalinka xitaa fiiri, qofna macalin ma noqon karo ilaa uu haysto arday uu waxbaro. Dhakhtarka dhakhtar ma noqon karo hadduusan bukaan haysan. Injineer ma noqon karo hadduusan haysan dad ku noolaada guryahaas iyo qalabkaas uu soo saaray uu farsameeyo dad isticmaalaya. Sidoo kale askari muusan noqdeen haddii uusan jiri lahayn cadow lala dagaalo. Waardiye ma jiri lahayn haddaa tuug uusan jiri lahayn. Marka xaggaa waxaa ka arkaysaa xitaa shaqo kasta oo bini'aadanka qabto waxay u baahan tahay bini'aadan kale ayay u baahan tahay. Aristotle mar wuxuu dhahay bini'aadanka waa xayawaan bulsheed ayuu dhahay, waa social animals. Xaqiiqatan taas waa run. Qofka bini'aadanka ah yacni kaligiisa muu jiri karo, waa inuu haystaa bini'aadan kale. Laakiin waayahan dambe waxaa saaid noogu soo batay inaa maqashid yacni very independent man, very independent women, yacni waxyaabahaas noocaasa waa been la iska dhaadhiciyay. Ani maraa aaminsanaa jirto inaan ahay qof oo independent ah, laakiin waxaa ogaaday inaan ka fogaaday waxa la ii abuuray oo ah inaan dadka ku dhex jiro. Haddii yacni inaan dadka ku dhex jiro aan la ii abuuri lahayn, sagaaraa iska noqon lahaa oo duurkaas iska dhex joogto aan noqon lahaa ma aho. Laakiin bini'aadan laga dhigay, dad kale lagu dhex abuuray. Waxaa markaas aaminsanaa in aan maaragtay xitaa haddaan cashirka fahmin macalinka inaan weydiisto yacni dhib igu ahaa jirtay. Waxaa ka fikiraa like hadhow waa raadi kartaa, hadhow waa baaraysaa oo ma baahnid haddaa macluumaad i dhaafo ma weydiisan jirin yacni ardada kale oo fasalka iska dhaaf waxba ha weydiisan, yacni waxba kaama dhibayso waxaas haddee wax ku dhaafaan wax maba kaa halaabayaan. Yacni wax caawimaad ah qofna ma weydiisan jirin. Xitaa marka hadday meel i xanuunto inaan anigu yacni isku dayo inaan is daryeelo, kiniin raadsado, wax sameeyo lagama yaabo xitaa inaa qof markaas hadday ila joogto iyo aan dhaho meeshaas ay xanuunayso mise waxaasa iga halaysan. Haddaa shiid ahay sidoo kale. Yacni waxaas oo dhan waxaa u sameynaa waxay tahay inaan anigu isku filanahay inaa qofka mise dadka ila joogo mise dadka asxaabteyda ah, dadka wax la baraay waxaas inaa dareensiiyo.
يعني inta badan Soomaalida maxay dhahaan nin fadhigaada arki waayo looma sara kaco yani wax noocaas ah qofka wax kuu garto bis inaa aragtid inta kale aan wax la weydiisan kadib waxaa ogaaday inaa ma aragtay in dadku ay horta kaa dhaafeen inay wax ku weydiistaan oo ayagu waxbay ku weydiisanayaan adina wax ma weydiisanaysid waxaa arka marka dadku waxay weydiistaan anoo dhibsanaa alla aniga ma weydiista ma ogtahay qofaa wax ku weydiisanaysa la dahaal qofkan waxa muxuu weydiisaa ani wax ma weydiista anoo in caawimaad la weydiista dhibsanayo waxaa ogaaday yani dhibaatada ma aha dadku wali alla waxay ku nool yihiin bini'aadanimadeeda laakiin dhibaatada aniga brightkayga aniga qofka ma aragta softinimada ka tagay aniga qofka aan dadka wax weydiisanaynin ugu dambeynna waxaa ogaaday yani waxyaabahaas in aniga is adkeeyo aan wax walba kaliya samaysto aniga aan qofba waxba weydiisan in wax xooganaana mise wax madax banaaneen mise wax isku filnaansha aysan ii siyaadin yani kaliya yani ay hoos u dhigtay aaminaadii aan dadka ku qabay in dadka qaar oo muhiim ii ahaa markaas aan noloshoodii ka baxay waayo markii qof inta wax ku weydiisto dhowr jeer adna wax weydiisadid qafis isku xirto qofku marka dambe uu ka aamusa uu ka gaabsano sababtoo qofna kaligiis ma raba yani inuu noqdo qofka wax weydiisto waxa saaxiib lagu yahay waxay in wax la isweydiisto marka dadka qaar say wixii weydiisanayaan ani ka goosto aan waxba dhihin xitaa markay dhaan ma ku caawiyaa dhahay ma caadana isku filan kadib maxay bilaw inay gadaal iskaga dagaan oo arkiba qofkii oo waayahanba agaheygaba jooginba marka maanta qof markuu independent sheegto yani inta badan waxaa dareemaa inay dadkaasi ay yihiin qof asi qalqal hoose dareemayo qof aan rumaysnayn naftiisa inay leedahay yani awood uu bulshada ugu tabaraco macnaha dadka qaar hadaa wax yar u sameey maagto ma aqbalayaan waxaas u sameyso sababtoo hoose waxay ka dareemayaan kow inaysan u qalmin waxaani sidoo kale markaa u sameysay waxay ku leeyihiin oo maxaa isku dhibto maana baahnayn waxaan wax loo baahnaa ma ahan ayay ku dhahayaan yani inta qalqalkooda hoose ay qarinayaan adigii laga yaabaa in markaas ay ku sii niyad jabiyaan ayaka wax in loo qabto mise wax loo sameeyo dhab ma aqbalayaan sababtoo ay naftooda kuma kalsoono in inta u sameyso kale ay ku sameyn karaan marka halaha dadaalka baxaysid kaama rabaan way ku joojinayaan may waxaan ha sameyn ha isku dhibin ay ku leeyihiin sababtoo ma aaminsana ayagu intoo kale inay soo celin karaan dadkan sidoo kale yani inta badan in wax loo diidaa dhibto oo marka qof wax weydiisatid qof wax uu ku diidi karaa wuuna ku yeeli karaa laakiin dadka oo markasta dhaha inay independent yihiin waa dadka aan u adkeysan karin in wax loo diido oo marka qof wax weydiistaan haduu qofkaas u diido dhibay u tahay soo marka diidmadaas sida aga cararaan qofna wax ma weydiisanayaan marka dadka ma aragtay aadan wax weydiisan oo adiga istiraada kaliya isku filnaaw energy-ga dhana ka dhamaanayo yani waa daale bini'aadanka kale asxaan ma sameynaysid naftaadana asxaan ma sameynaysid bini'aadan kalena waji xun ka qaadanaysaa mid kale qof kasta uu qalmaa in wax loo sameeyo yani markuu qofku yiraahdo waxaan kuu sameeyo qof wax kuu sameeyo ina ma aragtay qofka ku tira ha isku dhibi waxaas ugu sameeyay ma ahan yani waa u qalantaa in waxyaabaha qaar lagu sameeyo adoon wax juhdi aanan galin mid kale marka adiga aad tiraahdo waa isku filan qofkii ahay yani dadka dhan qof xumay kuugu muuqanayaan waxaasina waa yani kibirka mise qabka kugu jiro uu sii siyaadaya yani qabka mowduuc kale insha Allah kaga hadlaa laakiin way isla socdaan yani qof markuu ku yiraahdo ani very independent ahay waxaa ogaan kartaa qofkaas qabkiisana inuu buuxo oo qofkiisana uu saayid u sareeyo qabweynidana yani waxay ku diideysaa ina xaqiiqatan ina si buuxda u noolaatid ayay ku diideysaa yani qof kasta yani jir ahaan wuu yahay independent yani alxamdulillah hadaa haysatid lagu gacmo adimo dhameystiran hadaa haysatid maskax ahaan waa noqon kartaa independent sababtoo fikirka rabtaa qaadan kartaa fikirka rabtaa aqrin kartaa madaxaaga fikrado kala duwan ayaa ma aragto ku shubi kartaa kuma qasbanid laba fikir ina madaxaaga uu ku jirto bis yani uu ku koobnaado laakiin bulsho ahaan anaga ma noqon karno san aaminsanahay wax independent bulshada ma ka maarmi karno hadaa tiraa waa ka maarmaa bulshada waa daaleysa stress kugu dhacay go'doomina kugu dhacayo yani sababtoo waa wax nature-kaaga ka baxsan adiga waxa lagu abuuray dad kale lagu abuuray dadkan kaleeto ina isticmaasho waa qayb kamid ah yani isticmaasho markaan ku dhahayo yani hantida haysatay dadka kamid ah dadkan kugu hareereysan
yacni qofka wax kasta aa weydiisani karta haddaa emotional support kaga baahanta wixii markaas aa kaga baahanta aa weydiisani karta taasina waxay siyaadinaysaa xaqiiqnimadaada iyo nuglaanshahaaga dadka inta badan waayahan dambe nuglaanshaha yacni saa-id ah waxaa looga dhigaa wax saa-id u hooseeya laakiin qofku inuu nuglaantiisa muujiyo uu qof nugul noqdo waa dabiicinimada waa wax iska caadi ah yacni qof dhammaystiran maanta ma jiro qof xoogan mise qof qalbi adagna ilaahay nagama dhigo yacni qalbigiisu saas dhan u xoogan yahay nuglaan inaad leedahay inaad mararka qaar aa muujisid nuglaantaadan aa aqbashid waa qeyb dabiiciyada kamid ah taasina waxay ku siinay flexibility qof markuu yahay qof nugul hadba dhinac uu sameyn karaa hadba waxbuu tijaabin karaa laakiin markaa nuglaantaas qarido oo aad iska dhigto qof tan u baahan oo aan wax kale u baahnayn waxaa noqonaysaa yacni qof aan xaqiiqadiisa ku nooleen oo gudaha tension badan ka dareemaya aa noqonaysaa marka inaad markasta tiraahdid independent aan ahay yacni waxay tusinaysaa qalqalka ah hoos ka dareemaysid way ku tusinaysaa sidoo kale waxay ku tusinaysaa in aadan naftaada ku kalsoonayn in lagugu tiirsanaado sababtoo ani markaan ku yidhaha independent aan ahay adina waxaan kaa rabaa inaa independent noqotid yacni qof xor ah madax bannaan inaad noqotid dadkan inta badan xorta ee qofna kama ogolaadaan inuu ku tiirsanaado sababtoo way dhibsanayaanba markuu qofku maago inuu ku tiirsanaado dhibay u arkayaan ayaga waxay isku maleeyaan naftooda inay ku tiirsanyiin laakiin naftooda ayaga xitaa kuma tiirsano sababtoo qofku hadduu naftiisa yaqaano uu naftiisa ku tiirsan yahay naftiisa jacayl siin karo naftiisa naxariis siin karo bini-aadan kalena wuu sii karaa bini-aadanka kalena wuu ogolaan karaa inuu ku tiirsanaado laakiinse uma ogolid markaan inuu qof kugu tiirsanaado adi waxaa isku maleysaa inaad isku tiirsantahay laakiin caadiyan iskuma tiirsanid naftaada uma fiicnid mida kaleeto adi haddaada bini-aadanka u baahnayn maanta waxaa arkaysaa qofku dhahaya meel duura haddaan dago oo internet aan haysto qofna uma baahna internetka xaa ku falay internetka wadada aad ku falayso keliya soo maaha inaad bini-aadan kale kula xiriirtid qof bostiyu soo qoray inaa aqrisid qof video buu soo dhigay inaa fiirsatid qof sawir soo dhigay inaa aragtid halahaas le internet ma ka rabtid wax bini-aadan kala qoreen le ma ka rabtid yacni internetka xayawaan kale ma isticmaalo may soo haddaaba internetka jeceshahay micnaha bini-aadankana waad jeceshahay laakiin inaad bini-aadanka aad ku xirnaato bini-aadanka inaad maaragta ku tiirsanaatid qabkaagaa kuu diidaya inaad taas maaragta aa aqbasho laakiin waa caadi waa ka gudbi kartaa tan inaad iska dhigto qof oo very independent ah inaad iska dhigto waa ka gudbi kartaa sababtoo wax xaqiiqada ku saleysan ma ahan bini-aadanimadaada dabiiciyada lagugu talagala wax ka baxsanna waaye marka koowaad waa inaad aqbashid inaad bini-aadan tahay haddaa rabto inaad ka gudubtid xaaladan aqbal inaad bini-aadan tahay aqbal inaad u qalantid in aad ku tiirsanaato dadka kale wax kuu sameeyaan dadka kale asxaan kuu sameeyaan dadka kale ku daryeelaan dadka kale ku caawiyaan taas aqbal yacni sababtoo qof ma jiro intuu dhashay hal mar maaragtay wax noqda isagu anaga dhan abaal la isku dardaraan ah habartaa waxay kuu soo sameysay aabaha wuxuu kuu sameeyey walaalka iskuulka markaa joogta saaxiibadaa waxay kuu sameeyeen qof kasta wuxuu kuu sameeyey adi dhan asxaan la isku dardaraa tahay yacni wax adigu badeeco adu ma tihid dabiiciyahoo maaragtay kaligeed hal mar bug soo tiri ma tihid soo ma ahan marka waxaa aqbashaa in bini-aadanka aa ka mid tahay bini-aadanka u baahanta ayagana kuu baahan yihiin qofka bini-aadanka dhabarjabin hadduusan aqoonin dhabarjabin kama baqo yacni waxaan ka wadaa adi waxaad dhabarjabin ka baqaya mase in lagu qiyaamo ka baqaya marka aad adigu tahay qof wax qiyaamiso qof wax dhabarjabiya laakiin inta adi aadan waxba dhabarjabin mise aadan waxba qiyaabin dhabarjabin iyo qiyaamo kama baqaysid yacni kugumana soo dhacayaan cabsidaasna ma kugu hayso marka xitaa haddaad taqaanid si dadka loo dhabarjabin mise wax loo qiyaamo qiyaamadaada iska dhaaf dhabarjabinta iska dhaaf yacni si toos ah inaad ula dhaqaantid dadka sababtoo this is dunya wax oo ma ahan oo eternal ma ahan wax waaraya ma ahan maalin ka maalin waa la iska dhimanaa maalin ka maalin waxbaa iska dhacayo marka bini-aadanka maantay saa aaminsanahay waa yacni wax ka mid ah waxyaabaha noo saacida inaan noolaano wax ka mid ah waaye yacni maskax ahaan sababtoo maskaxda waa waxa siiya qofka bini-aadanka ah inuu sii jiro yacni inuu sii jiro waxaan ka wadaa haddii maanta gaajo meesha ugu dambeyso ay ku hayso maskaxdaadu weli ala fikir ma doonayso
in ayada ay survive gareyso inay ku badbaadiso xal kastay u raadinaysaa. Marka bini'aadanka waa dad naga caawiyo maskaxdeena inay ma aragto inta badan heerkan ay soo gaarto maanta ay joogto. Qof kasta waa laga yaabaa dad noloshaada si qaab daran ugu jiro inay jiraan, dad ku soo dhaawacay, dad si xun kuula dhaqmay, waxaasoo dhan inay jiraan aa laga yaabaa. Laakiin dadkaasoo dhan waxay ka qayb qaateen maskaxdaada isku dhiskeeda, fikradahaaga isku dhiskooda waxaase ka qayb qaateen. Yacni adduun aragaaga ay ka qayb qaateen. Marka bini'aadanku zaaid uu muhiim u yahay inaad tiraa bini'aadanka waa ka madax bannaanaha inaad tiraano waa qayaali, waa iska qayaali. Marka halahan aan rabo inaan maanta idinla wadaago yacni fikirkiina waxay ku xiran tahay qofka fikirkiisa iyo sida uu arko. Anina tan waxaa ku saleynaa waxay tahay maalmo hore marka anigu is dhihi jiray inaa zaaid independent ahay iyo maanta yacni haddii la yiraahdo maskax ahaan, caqli ahaan maantaan ahay. Laakiin berigaas aan isku maleynaya aan kii ahay, aan independent ahay. Laakiin ma ahayn waxaan iska dhadhacshay wax la noqon karana ma jirto. Marnaba ma aaminsan in very independent inay noqon karto bulsho ahaan. Markasta bulshada waa ku baahantaa, waa ku tiirsantaa wadada ay noqotabo. Marka halahaas aan rabo inaan idinla wadaago waa ku mahadsantahay daawashada dhageysiga codkaan. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.